Waa kuma Barahnandam ama Lelefo isbatoor isku dhuuq wax badan ka ogow jilaagan. Ninkan Soomaalida ay u taqaano Lelefo ama isbatoor isku dhuuq magaciisa dhabta ah waa Barahnandam. Barahnandam wuxuu dhashtay kowdii Febraayo 1956 waa atooro jila ah waliba dhanka shactarada kaasoo lagu yaqaano inta badan filimada Koonfur Hindiya ay Soomaalida sanadahan dambe aad u xuseeyaan. Waa mid ka mid ah jilaaga ugu shactarada badan ee ebed soo maray dalka Hindiya. Lelefo iyo noloshiisii hore wuxuu ku dhashtay xaafadda Jagnantii waa Koonfur Hindiya wuxuu wax ku soo bartay College-ka Andhra University isagoo ka qalin jebiyay suugaanta Teluguga. Wuxuu ahaan jiray macallin Telugu ah kaasoo xilligaas dadka ku wax bari jiray tuulada Atli lagu magacaabo. Filim jilista wuxuu ku soo biiray sanadkii 1987 filimkiisii ugu horeeyay kaasoo ahaa Telugu waxaa la dhahaa Balentii. Abaalmarinta uu ku guuleystay jilaagan bishii Janaayo sanadkii 2009 dowladda Hindiya waxay guddoonsiisay abaalmarinta Padma Shri taasoo ah abaalmarinta afraad ee darajo ahaan ugu sareyso lana siiyo muwaadin Hindi ah. Sidoo kale Filmfare Award ayuu ku guuleystay sanadkii 2002 qaybta shactarolaha ugu fiican. Wuxuu kaloo haystaa 5 Nandi Award iyo 6 Cine Award iyo kuwo kale oo badan iyo waxa kale uu haystaa 3 National Film Award. Lelefo wuxuu haystaa score caalami ah kaasoo ah in uu ka soo muuqday in ka badan 1000 filim oo Telugu ah. Noloshiisa gaarka ah jilaagan waxa u dhaxdo gabadha lagu magacaabo Lakshmi waxayna u dhashay labada wiil ee la kala dhaho Raja iyo Sadati.